سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا أصحابتي ميل ku joogtaan waa walaalkiin Ibraahim Maxamed Nuur. Waxaan rabaa saddex sabab dadka badankoodu ay u fashilmaan. Dadka yoolalka iyo hamiyada leh, dadka raba meelo waaweyn hiigsanaya, dadka raba inay wax bartaan, dadka raba inay ganacsi yeeshaan, dadka raba inay horumar gaaraan. Qof walba ku haminaya horumar nolosha hami ka leh. saddexdaan sabab inta badan dadku way ku fashilmaan. qodobka koowaad qofkii aan hadaf lahayn, hadaf la'aan, qofkii uusan hadaf lahayn meel uu hiigsanayo oo rabo inuu gaaro. tusaale hadda waa 2026 bilaabo rabto 2026 markay dhamaanayso sanadkaas aniga intee rabaa inaan gaaro. qofkii uma qornaba uma diyaarsana uma qorna man u diyaarsana ma garanayo meesha u socdo. wuxuu ku sugan yahay hadaf la'aan, jahwareer iyo waqti lumis ayuu ku sugan yahay. qodobka koowaad waa. qodobka labaad qofkii wax uu bilaabaya wixii uu bilaabay caqabadihii yaryaraa oo maaragtay wax walba la bilaabo caqabad bay leeyihiin. caqabadihii yaryaraa oo la rabay inuu ka gudbo oo adkaysi uu u gudbo la rabay caqabadihii yaa la haraayaba wuxuu bilaabay wixiina dhexda ugu haraa. waa qodobka labaad. qodobka saddexaad wuxuu ka baqaa dadka maxay ku leeyihiin. macnaha wuxuu mar walba ka fikiraa dadka maxay ku leeyihiin oo dadkaani macnaha ma ku dhaliilayaan, maxay ku leeyihiin, ma ku ammaanayaan, waxaasuu ka fikiraa. qofka guulaystana waa qof shaqeeya, ma aha qof ka fikira dhaliilaha dadka ay u soo jeedinayaan. dhaliilaha dadka ay u soo jeedinayaan qof ka fikira mahe waa qof guulaysta oo shaqeeya oo horumar inuu hiigsado qalbigu ku haayo weeye. aad iyo aad u mahadsantihiin. wabillahi tawfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.